hoose magaalada Muqdisho xafiis ku leeyahay ayaa nagu soo booqatay ka warab maxaa nagu soo booqatay xafiiska waxaan ku soo booqday guri aniga aan leeyahay oo Cabdicasiis ku yaalo oo Soomaali oo dhan ay taqaano ayaa layga xoogahaya waxaana iga xoogahaya dawladda meel kastana waa tagay xataa prime ministerka waa u tagay documentskii waa kan xataa warqadii rajabuutada ahayd oo fasaxa dhismaha dhulka aan dhulka ku sameeyey wataas intii kalanto documentiska oo dhammaanyaalaha projectaatiga ahaa wakaas meel aan u dacwoonina ma laha waxaa igu maqaalaa inaaga leeyihiin annagaa naloo xukumay maxkamad iga xukuntay ma jirto dawladdaa xoog iga bixisay hameenoo madow korneyl xoogga dalka Soomaaliyeed ahay waxaa la heli karaa in amar la isiiyo waxaa la heli karaa inta la ii yaro in la yiraahdo dacwo lagu qabaa dacwo bax intaas ayadoo loo igu sameyn baa waxaa la igu sameeyay akuusa buteri waa la xoogay gurigayga waa la igu xoogay alaabteeda waa la jibiyay ilmahayga waa la laayay naagteeda ilmaha laga riday wax ila hadlana ma arkin hadda waxaan leeyahay waa wareeyaa islaamay waxaan ku soo booqday waa wareeyaa islaamay yaan kugu wax qabanaya male dawladnimo ma jirtan leeyahay sababtu waxa weeye cadaalad la'aan gurigayga gudoomiye degmo yaa wuxuu leeyahay waa la wareejiyey waa la xukumay xukunku soo labada qof kan dulman iyo kan laga dulmayahay soo in la isugu yeero inta la isugu yeero qof walba wuxuu wata la arka maaha aniga waxayga waa kuwaas gacantan ku wata kow waxaan wataa intaas oo kaleeto dadkii deegaanka ahaa oo markhaati ah cali mahdi baa ugu weyn injineerkii dhisaa jooga injineer axmed raaliyaada waa joogaa qof aan aqoonin malahan gurigeyga dawladdii maxamed siyaad markay burburtay anigu darawalkii maxamed siyaad baan ahay xamar kama tegin hal hameen kama dhexin sidaan u joogaa weligayna wax ii dhibo wax isiiya ma arkin sidaan u joogay baan u joogaa meeshaan baan deganahay ilmahayga 9 caruuraan ku dhalay kabacdi burburkii kabacdigii sidii bay u joogaa waa wada mutacalimiin waa wada degtar miran ma garad xoog baa laygu haystaa waxaan codsanayaa oo adinkeena ka codsanayaa inaad adduunka ku faafisaan adduunka in la ii gurmado cadaalad baan rabaa cadaalad iyo xukun cadaalad prime minister kornele maadaama aad tiri gudoomiye degmaha guriga wareejiyay waxaa jirta madax ka sare si gobolka oo kale sidoo kale maxkamada oo kale arintaasi ma u gudbisay yaaba kula hadlayaba qof walba uu ku leeyahay war maxay tahay haye war maxay tahay war aniga waxayga anaa leh ama hal layga xukumo waa la xirayaa minki waa la xiray haddii laan ku waa la xiray waa la xiray kow waa la dilhayaa haddii cadaaladu jirto maxaa lay gudlaa maxaan matuug baan ahay dawladdii maxamed siyaad oo aan ka mid ahaa baan joogay xamar weligay mooryaantii dadka dhacaysay oo dadka furanaysay qof itaabta ma arkin qof walba musee inta mar buu lahaa haye hadda oo dawladnimo jirto oo wax la sheeganayo oo wax walba ay jiraan yaa lay dilayaa minkii aan guriga ka dhumanaya ilmahayga ka dhumanaya ma garad waa marka cadaalad marka kornele waxaa ka mid tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa leedahay taliyaha ciidanka ugu sareeya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed yaa Amanduula arintaas ma gaarsiisay waa gaarsiiyay Amanduulaha ma arkin laakiin taliyaha wuu og yahay waa u tagay 10 goor u tagay waxna ima qabl waa yeelhaya waa qabanhaya maxaan sameynaa hadda askar baa joogta gurigii oo tuuta qabta oo askar ah yaa guriga ku dhex jirta ma garad waxa xukumo ma aqaan waxaan uga dacwooda ma aqaan wax ila hadlaaya ma aqaan anigana haddaan inta ciidanka haysto mataqaana iyakan aan meesha aad waa la dilhaya ama waxbaan dilhaya waa sidii la rabay ma garatay marka cadaalad baan u baahnay cadaalad marka maxkamadda u saana tustay waraaqadaha caddeynta maxkamadda sare ee Kaxanaf marka ii sheeg haddana gudoomiye maxkamadda sare waa la bedelay ma ku noqoto ma maya kuma noqon gudoomiyahan cusub intii la keenay kuma noqon wuxuu yiri
dad baa u tegey wuxuu yidhi aniga gurigaas arrintiisa waa iga horraysay wax iiga yimidna ma hayo haddii la aan ku ran yahay wax aan ka hayana ma jiraan madaxweynaha iyo waxaa lagala xiriiraya prime ministerka yuu yidhi ma garatay waana hadda wax meel layga soo galay ma aqaan meel layga soo galay waxaa la yidhi gurigaaga waa la xukumay yaa xukumay maxkamaddii sare waa tegey ma jirto tii hoose waa tegey ma jirto cidda xukuntay yaa waay cidda u dacwooday yaa waay madaxweynaha waa ag taagnaa waardiyihiisa ciidankiisaan ka mid ahay iyo askartiisa ma leh wax wara ima siinayo haye yaa u dacwoodaa ha yaa u dacwoodaa ciidanka guriga ay joogtay ciidankee ma ciidanka militariga ciidanka guriga jooga hadda military baa jooga laakiin awal waxaa loo dhiibay markii aniga layga bixiya nabad sugid wuu ku jiraa ninka nabad sugidda furihii loo dhiibay yaa wareejiyey yaa amray oo wareeji yidhi cidda amartoo wareeji tiri ma aqaan cidba amar baa guri dhan oo laba dabaq ah oo qasri amyaa waxaa lagu wareejinayaa amar ha waa in maxkamad la geeya oo xukun u helaa oo cadaalad la geeyaa oo abukaate dooda iyo loo dooda u noqdaa oo aniga abukaataan leeyahay abukaatayga waa jooga wuxuu ka ogyahay ma laha ma garata wax uu ka ogyahay ma jiro saa noo sheegtay gurigaa markaa gadanaysay ma garanin waa la ii cabireed aniga waxaa la isiiyey dowladdaa isiisay ma gadan anigu guriga dhulkiisaa la isiiyey dhulkiisa markii la isiiyey haantii qashinka dowladda hoose UNPP meeshii la dhigi jiray wey ninkii iga qaaday haantii baa jooga John Fido baa la waa jooga waa generaal police ah waxaa jooga baabuurkii la iga qaaday oo qashinka qaadi jiray oo dowladda hoose markaas ka bacdi injineerkii jeexay dhulkaa jooga ma garatay oo dhulka jeexay kii dhisay baa jooga fundigii baa jooga kii labada shub saaraa jooga wax qarsoon maahan marka cidda gurigayga rabta aniga hayla xiriirto ha dadku waxay sheeganayaan beentood wey anigu dokumentaskaas haysaa hala yimaadeen anigu waa dhistay waan gadanay leeyihiin ninkay ka gateen ha keeneen bannaanka ha keeneen ninkay ka gateen aniga isagoo aan doodno ayagu bannaanka ha ka fadhiisteen ma ogola waa soo gadanay waa xoog ma jirto wax la gatay ma jirto wax xoog wey gurigayga xoog baa lagu qadanaya oo lagu dhacaya ha adinka waxaan kugu soo dacwooday inaad adduunka islaamka waxa islaamka waxay islaam sheegay ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullaah waxay dhahaya inay hiiliyaan oo cadaalad igu leeyaan marka ii sheeg marka gurigaaga dadka marqaatiyaasha ah waxaa ku jira janaalka ciidanka nabadsuguda ugu sarreeya gaafo kale arrintaas ka gaafo hadda waa janaalka ugu sarreeya ciidanka nabadsuguda qaranka Soomaaliyeed arrintaas ma gaarsiisay markii hore waan gaarsiiyay wuu ogaa laakiin hadda intii nabadsuguda loo dhiibay ani asaga ismaana arkin waan goobay markaan goobana waa waayay sababtu waxa weeye awal miis iyo kursi halka dhigan jiray oo fariisin jiray laakiin hadda balaaye iyo xil aan la arki karin baa fuulay wixii asagii baa meel iska bixiyaba waayey ha asagii meel alla meel ku agaaga waayey sababtu waxa weeye qarax baa ka dhacay xagga bad baa ka dhacay waana asaga shaqadiis marka waa waayey gaafo ma arkin gaafo hadalko waxu ka qaban la arrinteed marka gudoomiyaha gobolka minis arkin taliyaha gaafona minis arkin marka madaxda qaranka ugu sarreeyay dadka ku daawanay beesha caalamka maxaa ka codsan lahayd waa wareey baan leeyahay waa wareey yaa islaam hey war yaa islaam hey waa wareey baan leeyahay